ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما بعد، أخواتي في الله، waxaan aad ugu faraxsanahay kulankan sabaaxiga ah idinka oo soo kan lahay run ahaantii iyadoo ahayd maalin cutlo ah ama fasax ah, ayna fiicnayd inaad la qaadataan caruurtiina iyo ehelkiina intaba. haddana inaad soo doonateen cilmi barashadu waa shay aada u qiimo badan. waxaa laga yaabaa hal kelimo oo aada jahli kaga jirtay ilaahay subxaana wa tacaala inuu kugu furo ayaa suurtagal ah. barnaamij mawduuca waxaa la yidhahdaa annafaxaat alramadaaniya, sida shaashada idinka muuqata, ama udgoonka soonka ayaa la yidhaahdaa. aniga iyo shayla usoo diyaarinay, meelo badanna ka jeedinay. qofka rabana waa la siin karaa insha alla USB wata, oo mawduuc aada iyo aada u muhiim oo aada u weyn insha allahu tacaala. mustaqbalka dhowna waxaan rajeynaynaa in dhalinyarada loogu tarjumo af danish si ay hadda kadib ay uga faa'iidaystaan biidni illahi tabaaraka wa tacaala. xalaqo ayuu u qeybsan yahay barnaamijku. haddii aada aragtaan shaashada qeybta koobaad waad fiirin kartaan kulligiin shaashada, waadna ka faa'iidaysan kartaan insha allahu. qofka ka qaadaya soonka jabiya, waxyaabaha soonka jabiya markii aanu gaadhno ayaanu ka tilmaami doonaa insha allahu tacaala haddii ala yidhaahdo. isla qodobkeena koobaad waxaan ku daraasayn doonaa haddii ala yidhaahdo soonka meeqa qaybood ayuu soo maray, mise meeqa marxalad ayuu soo maray. sida aad arkaysaan ee shaashada aad ka arkaysaan 3 qaybood ayuu soo maray. waagii ugu horreysay bil walba 3 maalmood baa laga soomi jiray. sidoo kale bisha koowaad ee islaamka oo muxaram la yidhaahdo 10keedana waa la soomi jiro oo cashuraa baa la yidhaahdaa. waana maalintii fircawnna ilaahay uu halaagay, nabi muusena ilaahay uu badbaadiyey subxaanahu wa tacaala. soonka intaasaa waagi hore waajib ahaan jirta. u fiirsada, awal islaam soonka 3 bil walba in 3 maalmood laga soomo, 13 iyo 14 15 hadda sunno ah, iyo bisha muxaram 10keeda oo cashuraa la yidhaahdo. taasi waa qeybta koobaad. qeybta labaad waxaa la gaadhay waqti xugun la yidhaahdo atakhyiir. takhyiir waxaa la yidhaahdaa in ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey qofka raba inuu raashin quudiyo oo miskiin uu siiyo, qofka rabana inuu soomo. adagaa khiyaar lahaa. alkhiyaaru lak, ya ima an tasuum, inaad soonto iyo inaad dad afuriso, labadaada adigaa khiyaar u lahaa. tan waa marxaladii labaad weeye. ma ahayn marxalo waajiba, ma ahayn oo qasab inaad soonto ah. dad badan baa markii masaladan aan u sheegnay yidhi wallahi hadda wadamadan aan joogno show tanaaba nagu ficnaan lahay. ilaahay asagaa xakiim ah oo xikmadda garanaya subxaanahu wa tacaala. midda saddexaadna waa markii soonka lagu waajibiyey qof kasta oo awooda. waxaa laga khafiifin doonaa, waa arki doonaa qofka waayeelka iyo dadka aan awoodi karin iyo qofka xanuunsan iyo gadaal baan ka sheegi doonaa haddii ala yidhaahdo. idan soonku meequu soo maray? 3 marxaladood. midda koowaad waxay ahayd in bil walba 3 beri laga soomo iyo cashuraa. talabaadna waxay ahayd mas'alo aad adigu door qaadashada leedahay, ma soomaysaa mise miskiin baad quudinaysaa. midda saddexaadna waxay ahayd waa calal mustatiic, midda lagu waajibiyey. soom sidiisaba haddaad maqashaan labu u qaybsamaa. soom haddaad maqashaan labu u qaybsamaa, soon waajiba iyo soon sunno ah. soonka sunnadaa gadaal baan ka sheegi doonaa haddii ala yidhaahdo. soonka waajibka ah baa 3 u qaybsama. waataan idhi galaas baan ku jirnaa, muxaadaro ma dhigayo, laakiin waa galaas, yacni waa xiisad aan qaadanayno. marka gabadha qoran kartaa qorato aada bu u fiican tahay. cilmigu waa muhiim, cilmiga mar walba lama wada helo. soonka waajibka ah haddaad maqasho soonkan waa waajib, 3 buu u qaybsamaa. mid waa soonka ramadaan ee aan rajaynayno sabtida soo socota in ay noo bilato biidni illaahi subxaana wa tacaala, ama axadda midku ilaahay u ka dhigo. marka waa sawmu ramadaan, isaga waajib wey. soonka labaadna sawmu nadri baa la yidhaahdaa. sawmu nadri soomaalidu waxay dhahdaa waa sawmu shardi.
وحاطر إلهيو هدي أدويل كاس أما قبلنا إيقاحا والسنادي عافظه وحان واجب إيقاء وبلن إيقاء إنا صدح مال مدخول صوره أريد أدو شيء إسكساري نذر بالليل هذا قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا لكن النذر كان أما الشرط هنا هذا اسكو واجبيي إن الأوفيسو واجب يكون نقونيسا صوم كصدحات واجب كا وصوم الكفارات بالليل هذا صوم الكفارات وحالة وضع وصوم كمثلا تصارى كم بحيو مالين رمضان أي حرير قوليد بوحود أحمر إن يحاسكي سادرات كفارة وحلي هذا أي لقد دوليا صوم الكفارات بالليل هذا أما منك بوحود يحاسكي سهوية وكراد يتعطوا عراضي ولأنه يدي حاسك مردكتو مركه يدي وكراد يتعي كفارة أي واجب كبول نقونيسا إن أصومتو أما حج كاتشوكتي مركز أديكو حج كحيران أي تمي حيرتي أما عدي با ترتي أما برفون با استعماشي أما نمبا كشوكان سدي أما واشوكان ستي أما ميل وحلقون مهرين أيبا فريستي أما ننكي يحاسكي بقول أحمرتي وحي ألغو أقلين لأن قفك حج كحيران وحا الله أقلين باجرا وحا متكمدا أيات سميسي وحاويان حولا أيات قليسا نف أرئة هدي أدويدنا وأود أيجاري ويدنا وحلقات دون يطبان مالمو إلى صومتو طبعا كان مالمو صدح كميدا مكة وإلى كو صومتو تضبط كلام مركة أدخل صوم نقطة ماشي أدقني تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وذلك مكة دقنين وي مكة ذلك المكة يلا مرة بإنتا إذا الصوم واجب هذا المغشوة ونصدح ذا إما إنه صوم كرمضان يهي إما الصوم كالنذر كذا هذا اسكو واجب يسي إنه يهي إلهي ودان امتحان كوباسو صدح معلومات بنكون سوميا إلهي ودان كيوكوت كوباسو صدح معلومات بنكون سوميا إلهي ويل كاسان شعلهاي إنه خير إيه هي هذا نقطه أنقر سدو إلهي صدح معلومات بنكون سوميا وهكذا صوم الكفارات بالإله هذا مركا صوم هرت واجب وصدح لا صوم كالسنة مدادانو نري صونك السنة أو صدح حدانوري صونك السنة أسوى فربدية هاي وحاكمين صونك السنة شاشة ذات في لسان صوم يوم عرفة لغير الحاج قفك عرفتها اسكبت ما انت عرفه إلا الصوم والسنة ولما أذك صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده رواه مسلم فكمالي تاسوما سنة كي هورنا دنبغيسا الله نافيا سنة كالصوص عدنا إلهي ما دنبغيسا كإلهينا يوحو دنبغي لها وانا مالنتا بشا إسلام كإلابية طبناد إذي الحجة لإلهو مالنتا إساقال كتاهي حجيدنا أي عرفتها أيهين كوا عرفتها أيها حجك لغمر بئي سيدا حوق بضانه لكن ذاتك عن صومانين هلك الشوغة أي حجك لغرها سيدا أو كان قضب كلمات وصنوين كسنة صيام يوم عاشوراء بشا محرم سيال كذا مطفبا كذا أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله رواه مسلم يعني بشا إلا الصومالتي نبي موسى إلهي بالباديي أيضا الصوم كي كجر تارونتي إلا الصوم أي في عنتي صوم يوم الاثنين والخميس أيضا وحاويان إلا الصوم والسنة بالوالبئي صدح مع المولغة الصوم أيضا والسنة بشا طبعا ذي الحجة أو هرية أيضا العبادة عامة ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشرة والنبي صلى الله عليه وسلم فإنت سوى قيبت كوبات أما درسينا قيبت كوبات درسينا قيبت لبات صونكو حكم كيسو محوية هاي شريعة أن مركا يدون هذا المقشو الشيء الحكم كيسو محوية هاي الشرع أهل ما تكي إيسا الشيء المواجبة الشيء السنة الشيء المحرام با الشيء المكراهة الشيء المباح با
شرعتنا انت بدوي هذا شاهس ما حلال با ما حرام با سوق ليه خمره ما حلال با ما حرام با وحرام شاه ما حلال با ما حرام با وحلال ما كان إنه حلال نقضه إنه حرام نقضه إنه السنة نقضه وهذا سنة أجرات كهلي هذا كتكتنا آخر وحول ويدينين بلانتها الشريعة مركا هذا بس صومكم السنة مواجبة صومكم مركا واجب قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كلمة كتب بمعنى فرض كلمة ماذا كتب بمعنى فرض معناه ولا واجبيوي واجب كتب على وزن فعل ولا واجبي عليكم الصيام يعني صومك أيها اللي وحال ذكو واجبيي صومك أيها اللي ذكو واجبيي كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إذا صومك هو واجب حديث كما في ريا بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أركان الصدق المسك وهيو وصوم رمضان أركان إسلام كأن يكجر وصوم رمضان إذن صومك أساس أي واجب يحي صومك إنه صوم قال بيش رمضان محل قرنيا والسؤال أيضا الآن في عنوي إنه صوم قال محل قرنيا ثبوت دخول شهر رمضان وانقضائه لما أربط بلو قرتين الصوم كيوم كو إن بيش الله أركو بيش إسلامكم يغيبون ماتا أما سقالي لباتن بيش إسلامكم سدين لاتم كودا ماتا بيش إسلامكم يسدين مكودا ماتا إذا بيش إسلامكم أنوا سقالي لباتن أنوا صدر هذا سقالي لاتم كودا ماتا أو بيش لأركو من السومي يمسلم سومي هذه اللي أركي وين محل سمينا أحسنتن بارك الله فيكن ولذلك ما النبي صلى الله عليه وسلم وحول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي أو فإن غم رواية عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما أرتكوا الصوم أرتكوا أفرا سؤال أنا قاعد بركة شغلة ميان بيش أكرنا سأقول هذا وحلسوا منا إن شاء الله تعالى ذاتك مسلمين تعالى صومك وحوليه هاي قرق الميقى تير قوليه تير كوبات كو الله صدح أفر تيرارك هيا ميسكن أفر تير بوليه هاي أفر تير بوليه ميسكن أفر لقبك تاقي هاي تير وحالي هذا وحال لأنت وسشية تاقنانجي كريم أنساحي لنا هذا ما صومكم ميقى تير بوليه خضب كان وخضب هذا مهمه ميقى تير بكت هذي هاي صومكم الله بصمه وركا صحوي خير الله يسير ككوبات مركب محوية كعلي النية موجودة خير الله يسير النية شيء والنية وباهية شيء النية وباهنين عبادة والبنية وباهنت قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وحول بوحول بهي هيليو عبادته ماشي كأنصحضه والنية دوي عبادته ماشي كأنصحضه والنية قفل بنا وحا أن يستأيوا ليه هي وإنما لكل امرئ ما نوى سيوك الحديث كما صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى قفك أن هبينك ماكو سيحانا يعني سنين صون ملب النبي صلى الله عليه وسلم محاولة حي صونك السنة هي صونك واجبك هذه ودية قبله صونك السنة هي صونك واجبك محاولة حي إننا وحالي جلاس ما فلنا صمانا محاضرة ما تشوفنا هذا جالس ما فلنا صح؟ ما الفرق بين الصوم الواجب والصوم المستحب؟ صومك واجب كي صومك مستحب كم حول حياة. صومك واجب كم حول بهي النية صومه
soonka waajibkaa wuxuu u baahan yahay niyo. haddaadan niyeysanin soon makaa ansaxaya? intaa hoose maka xarimay. jayid. niyadu marka waa laba qaybo. habeenka u horeysa oo ramadaan uu soo galo inaad niyeysato, ama habeen walba inaad niyeysato. haddii aan dhahno habeen walba niyeysanhayaa waa sax. haddaan dhahno ramadaanku markuu soo galaa niyeysanayana waa sax. laakiin shardi, haweenku soonka ma dhamaystaan intooda badan. xaaladda ay gabadhu ayna tukanaynin oo ama 6 beri ama 7 beri ama iyo 15 beri xataa gaari karta, 3-4 berina laga yaabo inay ugu yaraan karta taqriiban, si haweenku badan yihiin 6-7 beri. hadday gabadhu arrintaa ay marto marka oo ay qabaysato, waxay u baahan tahay mar labaad inay niyeysato. tajdiidu niya waa inqitaacu niya dhacday. fakadalika almariid, qofkii hadduu xanuunsado oo wax iska cuno iska cabo oo uu caafimaado, wuxuu u baahan yahay niyadii inuu mar labaad soo celiyo. wakadalika almusaafir, qofka musaafirka ah asagana haddii uu safar ka soo noqdo iyadoo weli ramadaanka ah oo gurigiisa imaado, asna wuxuu u baahan yahay tajdiidu niya. og idinka niyaduna waa qalbiga, maha wax afka lagaga dhawaaqo la nawaytu sawma gadin, oo haddaan la dhihin ayna salaad xirmaynin ma aha jiro. waktigaana lamaba aqoonba, waktiga nabiga sal ly slam iyo dadkii wanaagsanaa ma ayna aqoonin. ee niyadu waa qalbiga. qodob koobaad marka waa anniya, qodobka aada loogu dadaalo. anniyatu shartun lisaa'iri alcamal, biha asalaaxu walfasaadu lilcamal. alayhi salaamtullah waa kii mataqaana ayay keenan imaam sacidi kitaabkiisa manduumada kii ku lahaa. marka niyadu waa muhiim jiddan weeye. qodobka labaad waa maxay? waa tacriifkii soonka. alimsaaku can almuftiraati min tuluuci alfajri asaadiqi ilaa guruubi shamsi. halkaas jumlo aan haddaan sheegay baan ku celina, si fiican u dhegeysta. soonka waxyaabaha jebiya markii aan ka hadlayana waan ku celin doonaa mar saddexaad. ujeedaduna waa maxay? inaanu si fiican dersiga aan u fahamno. wax alla wixii afka xaggiisa ka afka isticmaasho oo culaha gaara, xalaal ha noqdo, xaaraam ha noqdo, wax qoyan, wax qabaal, dhagax hadduu noqdo, kasna aad u laqdo, soonka waa kaa jabaya. wax alla wixii sanka xaggiisa aad ka isticmaasho oo culaha gaarana soonka waa jabinaya. wax alla wixii intaa ka soo hara, wixii dhagahaad ka isticmaasho, waxaad indhaha ka isticmaasho, waxaasoo dhan soon ma jabinayo. allahuma mid baan kasoo reebi doonaa oo faleebada qofka lagu rakibayo ayaan markaan waxyaabaha soonka jabiya ayaan ku dari doonaa insha allah. xalaqadana waa xalaqadeeni labaad. xalaqadeena saddexaad, soonku wuxuu leeyahay fadli cajiib ah, aad iyo aad u yaab badan. ku dheeraan maayo laakiin waa cajiib runtii. xadiidka hortiinaa fiiriya. nabigeena sal l slam wuxuu yihi idaa dakala shahru ramadaan futixat abwaabu samaa وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين والحديث في الصحيحين متفق عليه. بشهر رمضان هدي أي تماضو الباب بدأ السماوات كما الباب بدأ ضل فراء حلو فراء سمد الباب بدأ سمد وحكي ما دنا حريستي رحماتك يا وحي يا خيرك يا دبناف كما كي يا وغلقت أبواب جهنم جهنم الباب بدأ ضل النوال حرا لا إله إلا الله. وسلسلة الشياطين شياطين تنوال السلسلة دي ولما مردة الشياطين ولا عينها وشانس نبي يراد لقيست حلقية بدنو سمار كالب صومال إننا فرصة المرة باتو صومال بشهر رمضان قال له وانكت المامي دونا عشرة دي الدروس تلقى فايديستي كورسلاس لكن وحاله وقتها إنك وصل صعوته وإلهي كون دوري هدية آدوين والشياطين تلحق حري والسماوات كلا فري وتضرب سديدي الباب الجنة لفري وتضرب الباب النار تلحقي. الله أكبر. قف كيف يسوي يقولون بل قف كيف يسوي النبي محكي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم وحيري هذيك ليلة القدر كليا من حرم خيرها قفك خير كذا لقى حرمه ولا حرمه. النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حديث كاسي صونكا يكو واجبه سيدي سبا صون يكو واجبه يا لغا ربا إنو صومو باللحظة قضفيرية صوم waxaa laga rabaa inuu waajib ku noqonayo qofku inuu muslim yahay ay yakuna muslima oo dagaalkii waa meesha ka baxay wuxuu kaloo soon ku waajibayaa qofku inuu yahay qaangaar qofku inuu yahay qof qaangaar albuluug gabdhuhu 4 calaamaday ku qaangaaraan wiilashuna 3 bay ku qaangaaraan qofka qaangaarka ah soonka waa laga rabaa shalay maalman joogay su'aal baa la weydiiyey hooyo Soomaali waxay tiri gabadhaydoo 9 sano jirta oo 9 sano ku qaangaadhay sidii soo miisaanti sidii soo dhigtay yani ma awoodi karta kooda iskuulkii waa badhibaya wala san gaajo isugu diraysaa لأن أنا إلمهنا وحاربنا مركي علوش كتشرين تربية لغو بلاو ilmuhu markay caloosha ku jiraan tarbiyada lagu bilaabo ilmaha markay ay dhashaan tarbiyada lagu bilaabo ilmuhu markay guurguuranayaan tarbiyada lagu bilaabo 7 sano markay gaaraan in tarbiyada la baro muru awlaadakum bis salati wa hum abna'u 7 gabar 9 sano jirta waa inay taqaan wixii ku soomayso iyo alla ka cabsiga iyo waajibka hadii aqooni gabadhaada sababta xijaab u qaadanayso iyo sababta isu asturayso iyo sababta ku soomayso hadii aqoon ba suuriyada soo aakhirada uma soo aakhirada lagu wajin maayo hada aakhir lagu wajin inana adu waxa uu fahamta tarbiyada ilmaha in cunto la siiyo cabitaan la siiyo iskuulka loo diro inta hadii ay fahmaan marka uu qeyliyana TV-ga loo daaro inta kaasi jeedaan alxamdulillah Allah islaamka loo diriska telefoon kula hado xajramaas صحما marka in ilaah laga baqa fiican ilaah ka baq oo ma tarbiyan ilmaheena si sax oo ma tarbiyayno runta la sheego daruu la sheegay been baa qarsoon hadaad aqoon soo baro raadi ilmaha si loo tarbiyaa ilmaha guriga kuma joogan cunto hooyo Soomaaliyeed saaki ilaahdiis oo ilaahay ugu yeey jarmalka ayada 14 sano iyo 4 bilood buu jiraa saaki tuu yimid wiil maanta laga bilaabo masiixi baa laga yimaad salaad خلاص saaki laga bilaabo masiixi baa nahay tuula cillaan degana kii kalena asagana saaki yimid طيب ها هداية إلهي ما هي هداية إلهي ما هي توا قناعان كل قناعنا لكن ذلك والد كان مقام لماذا إسقطتين وحد مدين ليلين كمات توم كيري سنور أيها لماذا أسأل عسى ما مثلا وحي كبر من لما أركي إلا من رحم رب العباد إلهي سبحانه وتعالى دبها الله النغض تربية الماء تربية الماء دبها الله النغض وأنكو عينا يا إرقى تربية الماء دبها الله النغض وأنك هنغا أركي رمتا أنك هنغا أركي محقرسك وأنك هنغا أركي العبادة وأنك هنغا أركي الأمانة وهنغا أركي الدلقاتك هنغا برتين صبرك هنغا برتين عفسك هنغا برتين صلاة الليلك هنغا برتين محالي هذا ديقسي النمدة وإن قدوة يبكتر ولا سنبو النظرنا ما أصومها وينانا يا ماريتي وينانا عليك وكين كينا يا قانقار كاسي مركا قانقار كاسي وحاول يقفكم كو قانقار الصونك ولا قربا قضب كالصدحان والعقل qofka soonku uu ku waajibayo waa inuu sawaalayn waa inuu miyirkiisi joogo waa inuu aqligiisi joogo xila aqligu waa nicmo weeye
إلهي عاضي نغما قاد سبحانه وتعالى قضبك أفراد وصونك يكو واجبا قفك وينو أوذو هكا هذا اللي ليس سؤاله أبو بضان ورمضان كستمرك لقاد لسويدية كنتبتاه وينو أوذو محاك وضع أوذو على بقيبه قفك أدو الدق يحي ويل يحي سقاشن تشير قارو سيديتن يشن سيديتن بقول تشير قفك أدو تشيركيسو ضعيفه لكن أي مسكح دي سوتشوكتو صد المسكين بوقودنا يا قفك وكعلي يا غضب كوالا فهم قفك وادو قوبي سقاشن سنو قاري سيديتن سنو قاري تشيركي سوا ضعيفي تشيركي سن أودي كري لكن عقلي سوات شوغا قفك الصون واللي هي هدو دقالة وكبحي صد المسكين وكوقودي هدو هايستو صد المسكين بوقودنا يا حالا ميدا وحالا ميدا قفك اللي يرأى لكن حنون صدي حنون كنسر باكو دعي عذرنا أن لقى عافمادين إلهي نقوم الهدو وحاكو دعي عذرنا أن هذا مثلا بكرك الزيادة وحاكو دعي عذرك لو يقال السكرت مثلا ماشا ودن بيسيا قاستريق وحاكو دعي وصل مرنمة شوي كريم عذرنا أن انت بدن داود الله قاطو تشوك تدأ وصنقفكو أما قاتشي سنان كريم أما بيالآن نقوم كريم أما كين لآن نقوم كريم hadduu cudurka noocaasa qofka ku dhacana asagoo dhalinyaro oo hadduu doono 15 jir ha noqdee waxaa laga buuxo asagana quudinaya 30 miskiin buu quudinayaa qolo kale jirta ayagu aan awoodin yaa kamid ah adigoo iska xanuun caadi ah kugu dhacay hargab adag baa kugu dhacay dhabarka ku xanuunay si marka ramadaanka ma soomi kartid marka ma awoodi kartid waa soo qadaynaysaa marka adigu lagama doonayo inaad masaakiin qoyso قلبك شان قفك إنه جوري يسجون أنا قفك مسافر كديارات صارنا زي صعدة إنه أفرع يا وبنا قلبك اللي حدا وضم بيا درس يعني قيد تري دمر كيف خصوصا سالم هذا قيمات ومرنا هذي قبل أمور تاي إنه يصون تابع حرامة صون الله مرة وإنه سوق قضين دونتا إن شاء الله تعالى هذا ليلة هذا إياه الدورة الشهرية وعادة هو قبله أيقنا يصوم مرة أيقنا واسدة أوكله قلبك هذا قليله كلهم حتى نشوفنا وقتنا هذا مركز ربطينا مجالة بس كراعه بس ستوب باتشرا بس ستوب كلا جرا تراك مركز راعي صومة هذا مركز أنا بس ستوبيان مرينا كمان حي علاقة القرآن برمضان حرير كقرآن كي رمضان كده حي محاكا ده حي قرآن كي رمضان إلهي سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن عليكم السلام بش رمضان وبشي لسودة القرآن سبحان الله بنا عمرك كفي لسان هذا الريال وحد قرنا يستمرك معناها إنه يتهاي بش القرآن كأي صوصات سويدي هذا مرك عادي ترى بش المحاسب من نقطة قرآن كنتين بدأ من نقطة قرآن كنتين لك بدأ من نقطة يا قرآن كنتين لك بدأ من نقطة يا شرب القرآن كذا ما ينوطه لأنه وابشي القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ده أيضا القرآن إنا أنزلنا في ليلة القدر ليلة القدر هذا دون هذا الليلة القرآن كان يسود شيء ابن الصلاح عليه رحمه الله قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها البشر قرآن كأقرين تيسو وكرامه إلهي يكون كرامة بني آدم بمعنى الملائكة لقوا كرامة إنهم بالغ وضعهم كاسفان مثلا بني آدم كالسيي قرآن كإنه أقريه أو لقوا كراميه مركا ملائكة أيضا لقوا كراميه مركا ملائكة محي سمين إذا سيأي أربح القادة قف كان القرآن كأغرنا يا قف كقارئ إيه قرآن كأغرنا أفكيسة ملائكة أفكي ليس دوينيسة سيأي قرآن كأغرنا وأنا ميدو النبي صلى الله عليه وسلم يرقفك وإنه عضيلا لأنه القرآن كأغرنا قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها البشر إلهنا وحير إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور كو أغرنا يا كتابك الله سلادنا التوسينية وحانو سينينا وحكام بحينا يسهوس يسمو قتبا كوا ويكوا كوغو ليسي تجارة ذي يا ربحي غاضي
حديث كان بقى إلى أكبر حديث كان موجود حديث كاس عجائب. النبي صلى الله عليه وسلم حلاه إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس. قيل من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إلهي وحلاه ضد خاصة، وأهل الله وضد إلهي سبحانه وتعالى يقول ذوها. ولو يجوا حليلي من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ضدك خاص كإلهي أو أيه إلهي وحيلي وضدك قرآن كأقريا وانا ضدك إلهي يقول ذوها. رالي ما كنت هاي بشهر رمضان ونفترض مكوكا عيسى إلى ضدك قدر مني كورا هذا كورا أهل الله يظن وتكور سبحان الله. ضدك إلهي سيد قولي ذا وأترسل يا هذا دوري سلام غطو كتاب القرآن كذا رئيس بإذن الله تبارك وتعالى. وحدينا يا محطة كلا أيضنا من الأنترين كراعي معصو وأبهيموا وهو محاي مبطلات الصيام. صون محابورية، سلام محابورية، إسلام محابورية، وحول بوحبابورية، وحول محابورية. مركز صونك محابورية، صونك وحابورية إن أضو عنتو أو وحبتو كسنا أضو عنتو أو كسو عباتو. فهذا إلى الأكل والشرب عمدا إن كسو عنتو أو كسو عباتو أي هذا محل شيء محصان wax kasto afka xaqiisa ka imaado aad ka isticmaasho oo cunaha gaara ama sanka xaqiisa aad ka isticmaasho oo cunaha gaara soonka waa ka jabaya. laakiin waxa ku dartaa kas waxaan ka wada ola kac adaa ku tala galay ya kas maxaa loo leeyahay haddaad ilowdo soonka ma jabaya. iskuul baad ka timaado gaajaysan فرنشير كمان كفرتي بريس يكلون يجون بس هو كل ليستي إبر بفريت مركز ديركتور بعد حسوساتنا على الصوماليات الحمد لله وأرزاق الله بسي ليه ما يسوي حضار على الصوم يجوا أنا وسكستوا وحلوه ما حسوس تقولي أنا والصومان أو وحلوه واركع وشعرنا مركز غفير حلوه ما تذكرك مركز الشيء استخار بلا أنا ما أعلم بنرجع أنا ما أعلم بنرجع كسب حانوني لو أكله لأن قفك أدو جاهل كي هي مركان لنا هاي صونك وحواج صونك أقوى كاجم يا مركان لنا هاي صدح قضب ما يقولي كرتان قفك لي وإنو يقانو وحن الصجاء حوكي سوينو يقانو أدو جاهل يا هاي صونك ما جوي وأنا قفك وإنو يقانو وحن السمين يو وإنو حوكي سا هي الشرع أهل ويقانو هي الدليل كيسة هدو جاهل أذيقوا ما بتقاليل بقى هذا شاه عبتين وصوك على جميع شاه بس كعبتين صوك على جميع لأن الجاهل بات رقفكوا إنه يقانو مركوبات هدو سأقولي صوك ما جميع مركا لبانا وإنه أصدوا الدورته خيار كيسو السميي وإنه لقوا قصب بالغوضة هدين لقوا قصبه أول ويلا عب شيئا أول عب تسوق على جميع marka waa ina adigu doorato ay yakuna mukhtaara waa inuu qof asagu doorto wax inuu sameeyo ka hore muxuu ahaa waa inuu yaqaano cilmi ahaan iyo xugun ahaan waa inuu yaqaano ka saddexaadna waa inuu xusuusan yahay wataan ku bilownay waa inuu silmaansanay oo waa inuu kas u sameeyo marka waa inuu kas u sameeyo waa inuu maxaa la yidhahdaa aan lagu qasbin asagana uusan qasab oo khiyaarkiisa ku sameeyo وانا إنه حون أهانا ويقانه وسجاهل أحد صدق ذا أهمات أن يكون عالما بالحكم وأن يكون ذاكرا وأن يكون مختارا صدق أن يكون عالما بالحكم وإنه وحن حكم كيس يقانه وأن يكون ذاكرا وإنه حسوسيه
وأن يكون مختارا وإنه دورته صدح لا قضب كحر إذا الصنك وحاجبية وحكستو أو أضعنتو عبتو أفك حقيسة يسنك حقيسة إذا قاعد بلوح العلي سدوا هذا قضب كلمة وحرير جوجليت أو لما إسقط تحملتا أسجل الصنك واجبية واللي بسجل كفارة كواجبته قال ما كفافين دونا إن شاء الله تعالى دليل هذا قضب كصدحات وإنه قفكوا على وش يسوي حكوشرة وبنانك إسكاكيرو وأفكي توقع أنت كيري سكسو متجيو أما ومتقع ناسو متجو كس لكن أصمين هذه هذا كس أصمين ومتجو صور نافو لما تمالي لكن هذا كس أصمين يسوي وإحنا دي قضب كأفراد حلقات هذا الليج هذا بمن هذا فربنا ما الليج قالوا في يركها معها لكن حلقات بحسدي ليج بنجينا اللي في البويك أما واسبوت تومين بعضو تكتب ماذا كبيرات كو حانوني نمر كبيرات كو بالمناسبة هذا اللي سو توبه ولو ليش كوبنهاجن ضد احتوالات شوغا نور ميلاد بالي الشيء هل استوبه حتى فهمته هذه قوية أطوال استوبه وذو حفاله ويدو هذا أقرس حتى قوة أتكاده أو حصوصته قوة أتكاده والاستوبه ماشى قذاتك والاسكتوبه لبداس جيرك والاسكتوبه labada garabeesha isku tagaa waa iska tooba waxa ugu fiican waa 17 iyo 19 iyo 22 saddexda maalmood gaar ahaan isbisha islaamka in la istoobo ku baraarugsha tayib marka aduuniga fara badan marka ka yimaado waa daciifaysa waa tabar yaraanaysa marka tabar yaraatana waxa laga yaabaa inaad soonkiisii wadan weydo marka way ku banaantay marka inaad furto in dhiigi baa wax badan ka laga qaado qodobka shanaadna waa laba arrimood oo dumarka khaas ku ah waa dhalmada iyo dhiigga qodobka lixaadna waa niyatul fitri waxaad go'aansatay inaad afurto soo meena soo dhihin arkaanta soonka niyad baa kamid ah niyadii baad kala goysay waxaad go'aansatay inaad afurto cuntaad soo kuleysatay miiska markaa soo dhigatay oo wax walba soo diyaarso biyo soo qaadatay oo tilbis maanta inaad ka afurtaa ayaad markii dambe iska dah ma iska dhamaysto iska sii dhamaysto ugu soonka waa ka jeen waxay niyadii baad kala goysay laakiin haddii niyada cunto kaaga soo dhacdo dhibaato male horada la soconaysa maxadada kale yay u banaantay inuu afuro sideedaba ya al-a'dhar الشرعية في شهر رمضان شرع يوسي إنه أفوري كرو كو ورطة قفك حنوسان قفك حنوسان وحاول بنين أفور ساعات يسكول كذا دي مضحك حروري واكبرتي قفك حنوسان الله والكبير قفك الدقة والكبر قفك ويل دقة أنسوبي كريم لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر مريضا تكربا وحاك ربنا قفك مسافر طبعا إذا قفك حنوصل قفك ويلك إيا قفك مريض قفك مسافر إنت مبركة ويو بنان تاي مسافر وحاك لو بنان هويلي إذا أن تكنيني أما عادو أما ظلمو أيضا إني أفرتوا أما واجب ومسوني كرتو قضبك أفراد هويلي إذا أورك إيا مدى المهن نوجيني سنة haddii ayna awoodi karin inay soomaan waxay ku jiraan dadkan loo ogolaaday inay afuraan liqawlihi sallallahu alayhi wasallam hadithka in allaha wada'a 'ala al-musafiri shatra as-salati was-sawm wa 'ala al-hubla wal-murdi'i as-sawma haweenayda xaamilada ah iyo midda ilmaha nuujinaysa waa laga dajiyay soonka hadayna soomi karin maxay samayn doontaa ama qadayn doontaa qadadaasi ma fidye ku dari doontaa mise fidye bas ay bixin doontaa mise soon bas ay soomi doontaa wax yar kadib baan fasiri doonaa laakiin dadka loo baneeyay ku jirtaa gabadha uur kale iyo midda xaamilada inay afuraan soonku wuxuu leeyahay sunnooyin aad u fara badan oo ku dhamaystiraya soonkaagu dhamaystiraya maxaa kamid ah suxuurta nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu tasaxaru fa inna fi as-suhuri baraka suxuurta baraka ayaa ku jira waliba suxuurta in la dib dhigo
afurkana la dedejiyo oo markuu gabalku dhaco la afuro timirna lagu afuro marka la afurayo la ducaysto ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ducooyinka nabiga ku ducaysan jiray waana waqtiyaadka ducada la aqbalo marka la afurayo marka waxyaalahaasna waxay ku dhamaysanayaan sunnada qur-aanka sadaqada in la badiyo bisha ramadaan qur-aanka aqriskiisa in aad loo badiyo bisha ramadaan dadka masaakiinta in la afuriyo bisha ramadaan tahajjudka iyo salaatuleylka in lagu dadaalo bisha ramadaan iyo taraawiixda qofka soo cumraysan kara inuu soo cumraysto iyo qof kale uu aflagaadeeyey inuu dhaho waa soomanahay uusan la caytamin laakiin waxaa kaloo jira muqaabilkeeda waxyaabo soonkaaga kaa daciifinaya ayaa jira maxaa kamid ah markii la weysaysanayo intii biyaha lasoo qaado baa sanka biyaha kor fiif loo dhahaa marka aad ha waxay leeraalin haddaad soomanta wa ilaa haddaan soomanayn baaliq fi listinshaaq ila an takuna saayima sidoo kale waxyaalaha karaahada waxaa kamid a weliba dhalinyarada maaha dadka waaweyn maarta maaha gabadha dhalinyarada ee da-da yar dhalinyaro waxaan ka wadaa afartan ka yar dumarka oo nin leh in bisha ramadaan la yar kala fogaado limaada lianna shaytaankii weynaa waa xirxiraya kii yaraabaa laga yaabaa inuu soonka fasahaadiyo sooma marka in la kala fogaado xoogaa mataqaanaa bisha ramadaan oo aan mataqaanaa iikeen uusan ayna ka dhicin meeshaa soonku inuu fasahaado insha allah waan iskaga soconayaa taa qeybta kale laylat lqadar habeenkaasi waa habeenka ugu cajaa'ibsan allah subxaana wa tacaala wuxuu kala fadilaa waad ogtihiin makhluuqaadkiisa warabuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar ma kana lahum alkhiyara ilahi subxaana wa tacala makhluuqaadkiisa isagaa kala fadila habeenka laylat lqadarka la yidhaahdo ilaahay baa habeenada ka fadilay waxaana waa idiin sheegaya gabdho habeen markii la yidhaahdo habeenka laylatulqadarka ugu fadil badan maalin markii la yidhaahdana maalinta carafo habeen markii la yidhahdo waxaa ugu fadil badan habeenka laylatulqadar maalin markii la yidhahdo waxaa ugu fadil badan maalinta carafo man qaama laylat alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min danbihi qofka habeenka ilaahay waafajiyo dunuubtiisa ayaa loo dhaafaya laakiin xadiidka aan haddaay hormariyey bal xadiidka hadda ila arka xadiid yar oo kooban ya bal qofka xifdin kara xifdiya xadiid yar oo kooban laakiin macno weyn man xurima khayraha faqad xurim man xurima khayraha faqad xurim habeenkaa qofka khayrkeeda laga xarimo weli kaas ayaan daran midka ayaan daridu usoo hoyatay waa qofka habeenka laylatulqadarka khayrkeeda la garamayo subxaan allah man xurima khayraha faqad xurim man xurima khayraha faqad xurim waa ku celinayaa man xurima khayraha faqad xurim rawaahu النasaa'iyu wa axmed habeenka laylatulqadarka waa habeen aada iyo aada u yaab badan wey laakiin su-aal is weydii maxaa habeenka laylatulqadr loogu magacaabay siaad u yar ogaato liana allaha yuqadiru fiiha alumuura walarsaq ilahay habeenkaa wuxuu qoraa soonka kale soo socda inta laga gaadhayo cumrigaagii iyo arsaaqadaadii iyo waxaa la kulmi lahayd buu qoraa maxfuudkana ku qorantay tan waxaa weya waa taqriir cusub oo lagu siinayo malaaigtaa loo dhiibayaa laleeyahay sanadkan caawa laga bilaabo sanadka soo socda hebel wuu dhiman doonaa ogaada hebel wuu dhiman doonaa ogaada hebel wuu guursan doonaa ogaada heblaayo waa la furi doonaa ogaada sheekada saas waay taqriirki iyo melafkii baa malaaigta loo dhiibaa waa sanadkan ilaa laylatulqadarka laga gaadhayo lidalika waa arkayso dad badan oo dhimanayso oon gaadhin waa badan yihin waxbaa dhalanaya waxbaa dhimanay alla wuxuu yidhi inna anzalnaa fi laylati mubaaraka habeenkaa barakaysana la barakeeyey waa habeenka laylatulqadarka ah waxaa kaloo la yidhi liana allaha anzala fiiha alqur'aan
waxa laylatul qadr loogu magacaabay ilaahay baa qur-aanka soo dejiyey subxaanahu wa tacaala wa huwa acdamu maa yakunu min alkutubi qadra kutubta ilaahay soo dejiyey kitaabka ugu qadarka iyo sharafta badan weeye ayadana waa layidhi laakiin qodobka saddexaad cajaa'ib wey liana alinsana yucadimu qadrahu fiiha idaa axyaaha liyanaala sacaadata fi daari insaankaa la karaameeyaa oo darajo la siiyaa ama insaanka ayaa weyneeyey lianna alinsana yucadimu qadrahu insaankaa weyneeye habeenkaa markaasuu muxuu samaynayaa haddii habeenkaa baa la cibaadaysanayaa idaa axyaaha liyanaala sacaada fi daari si uu shahaadada ugu sarraysa u helo ayuu habeenkaa noolaynaya intaa waxaa kaloo yidhi liana alarda tadiiqu min kasrati almalaa'ika malaa'igta habeenkaa soo wada deg tanazalu almalaa'ikatu waaruux malaa'igta iyo jibriil baa soo wada dega marka taaka meel dhulka la dhiga male ilaa malaa'ig baa buuxisa habeenkaa intaba markaasi waa la yidhi waalcilmu cinda allah xikmada ku jirta in la qariyo waa la qariyey talow maxaa loo qariyey nabigeena sala allahu alay salam oo damcay inuu saxaabada u sheego oo la yidhi habeenkaa weeye habeenka laylatulqadarka ah ayuu arkay laba nin oo masaajidka hortiisa ku murmaysa markaasaa nabiga laga masaxay qalbigiisa muranka iyo khilaafka dhibkiisa ogaada mahmaa ay muslimiintu kala tagaan oo ay murmaan waa mahmaa barakada laga qaado awoodooda la qaadaya barakadooda la qaadaya dhulkooda la qaadaya dhaqaalahooda la qaadaya awlaadooda la qaadaya caqligooda la qaadaya xoogooda la qaadaya haddaa habeenkii dhannaa ee laylatulqadarka ahaa waa ka xadiidka ilaahka oo ka hortiina yaala xadiidka hore can cibaad bin saamir radi allahu canhu qaal kharaja calayna rasuulu llahi sal ly slam wahuwa yuriidu an yukhbirana bilaylati alqadr fatalaaxaa rajulaan laba nin baa murmay faqaala inii kharajtu ana wa uriidu an ukhbirakum bilaylati alqadri fatalaaxa fulanu wa fulan lacala dalika an yakuna khayra iltamisuuha fi ltaasicati walsaabicati walkhamisa inaa idiin sheegaan usoo baxay laakiin hebel iyo hebel oo murmaya ayaan arkay saa daraadeed baa nabiga qalbigiisa laga masaxay 10 dambese ka raadiya ayuu nabigu yidhi sala allahu alayhi waali wasalam 10 dambe 10 dambe tirada isdheer ka raadiya marka habeenadaas yaan la iloobin biidn illaahi tabaaraka wa tacaala maxato kalaan rabaa haddana inaan u gudbo soonkii tagay see loo qadeeyaa hadda soon baa laygu leeyahay see loo qadayn karaa ma soonka keliya layga rabaa ma fidyaa layga rabaa ma tawbaa layga rabaa mid aan usoo qaadano ama ka bilowna gabadha xaamilada ah ama uurka leh ay maxaad adeen gabadhi waa umul haye صحيح صعبة جزاك الله خير وجزاك الله يحفظك قلت فقهاء iyo culimada khilaafkooda wax fiican oo raxmad badan baa ku jira soo ma gabadha xaalada la gabdhuhu inay ka dhargaan aad baan u jeclaan lahaa waayo waxaan saa u leeyahay meel kasta oon tagno dumarkii madaxa iskula jirnaa ilaahay qudradii sheekhow kanaa laygu lahaa inta iga tagtay maba gabdhahan yaryarka ee hadda dhexda fadhiya gabdha la eg baan maalin dhawo su-aal weydiiyey gabar walba meeqaa soon lagu leeyahay gol kaba suuqada inaa 13 sano ku qaangaadhay 13 14 15 16 17 afartaa sano gabdhaha qaar baaba miyir lahaynba maqan ba adduunyada ka maqan gabdha badan ba adduunyada ka maqan maalintay gabadhu 17 iyo 18 sano gaadhaa laga yaabaa inay qaab cibaada u fikirto dee hooyooyinka waaweyn talo iyagana ma soo marin dadaas soo lama soo marin
أو يصوم كي ما صومرين ده إسقعلي أي واساس والكل دوية قارو يصومر قارو ما صومر gabadha uurka leh ee ayada uura soonkii uu soo galay ee soonku saa kaaga tagay iyo gabadha ilmaha nuujinaysa bal maanta aan isku dayno inaan saddex qowl aan kaliya aan ka qaadano insha Allah way soo qado horta lagu leeyahay shaki marka qadaam waxba raacsan culimada qaar bay waxba raacsan sida Shaafiiciyada oo kala qaado yiri hadday u afurto ilmaha daraadii xoolana way bixinaysaa hadday u afurtay ayada nafteedana qada bisa laga rabaa wala fiirsadas way Sheikh Uthaymeen rahimahullah iyo culimo badan waxay qabaan qada un baa lagu leeyahay gabadha waa gabar xanuunsatay Allahu a'lam wal ilmu 'inda Allah saxaabadana qaar waxay qabaan inay gabadha fiidyo bixinayso على كل حال قضى لك الربا إلى سوق قضيان أما فيديا لك الربا بإذن الله تبارك وتعالى dadka kale oo salaad qadaha lagu leeyahay maxaa kamid ah qofka maalin ramadaan ka soo gatay asagana qadaha laga rabaa toobad waliba ogow halka maalin ee ka tagtay hadaa 12 bilood soonto ajirka aad ka helay halka maalin ma helaysid qofka ramadaan ka soo gatay uu soo qadaynaya muxuu kale leeyahay laga rabaa tawbad xaaska labada isqabta xiirka dhaxmara ayagana waxa laga rabaa toobadna waa laga rabaa qadana waa laga rabaa fidyana waa laga rabaa waliba fidya muqallaba ah adoon in la xoreeyo adoon hada lama hayo 2 bilood oo isku xigtoon maalin u dhaxeeyo soo oo haduu maalin uu afuro cudur la'aan uu soo bilaabaya hadana يا محمد أنا أرداس وأرد مهمة وين هادو أولي وأمريكا لحدا مسكين بقودنا إطعام 60 مسكينا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولي عقابه حصرا من قبل أن يتماسى إسلامتي المدى وانكر لبضا بلوت مركا تاسنا وحلقنا في دينا ولا قربا قضنا ولا قربا هي صونكنا ولا قربا وانا مدان لا dhalinyaradu aad hayso ilaaliyeen insha Allah ta'ala hadii alla yiraahdo cid ay ka dhacday inay masaakiinta hal la qoodiyo insha Allah waxaan uga gudbayaa insha Allah suuratul baqara ilaahay marka sheekay shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran ayadoo aayaadka ramadaanka ay socdaan oo uhilla lakum laylata siyam rafath an la gaarin dhaxdeeda buu ilaahay subhanahu wa ta'ala أيوب لي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون مركا دعاء رمضان كالدعايستو حاجوين بدن بالله درب بدن بالله شيخ ويدعي سوين بدن مقامر marka waxa weeyaan ducada waqtiga la aqbalo waxa ajaa'ib ramadaanka ducayso soo kacbeen markii gacmaha ku rutaago xarta xaajada iyo dantaada waa maxaa ka maqan caafimaad awlaad maxaa ka maqan janno adi ducayso gacmaha ilaahay u taago subhanahu wa ta'ala marka ducadu waa cibaado sanawi ad-du'a wal ibada ducadu ayada ba ibada أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى كان يجيو اختيارك الدعاء الله أقبله وحاكم إذا وقت هبينكي وقت لسه ضمبه وقت السحر بالي هذا وحاكم إذا رمضانك وحاكم إذا مركل اللي قدمه اختيارك الدعاء الله أقبله وحاكلو كم إذا مركل السحور أنا وحاكلو كم إذا مال الجمعة إلى آخره haddii aan soo aruuriyo insha Allah ta'ala daliilado madrasada aan ka qaadanayno ramadaanka duruus aan ka qaadan aad u farabadan waxa ugu weyn ikhlaaska ma baraya waxa weeyaan waa ramadaanka ikhlaas maxaa laga wadaa
إخلاص محل وضع إيه ما معنى الإخلاص قبلها يربى مدينة يعني قبلها يرين لحظة كجرة أنت كواحدة لحظة فردها إخلاص مثلا كلمة إخلاص ما بقى شيء ولي محل وضع إخلاص قبلها أي شيء كرت إخلاص وحل وضع هذا كله وحلقة ربا عمل كاغا إن كوسا ليسو إخلاص محل وضع هذا waxaan ilaahay dartii inaad u samayso waa camal aad u weyn wey shaygan aad qabanayso inaad ilaahay dartii u samayso maxaa laga wadaa inaadan bini aadam dartii u samaynin maxaa laga wadaa in lagugu ammaano inaadan u samaynin maxaa laga wadaa inaad xoolo ku helayso inaad u samaynin maxaa laga wadaa waxaasoo dhan baa waxaa laga wadaa allah subxaanahu wa tacaala inaad asaga ku raali geliso waxaana samaynayso xijaabka waa inaad asaga u xidhato waa inaad asaga keligii u tukato waa inaad asaga keligii u soonto soomada garan waxaasoo dhan waxaa weeyaan waa allah subxaanahu wa tacaala baa ku siinaya ajir aada iyo aad u weyn bu ilahi kaa siinaya subxaanahu wa tacaala ayib haddaba soonka waxaa laga qaadanaya waxa la yidhahda ikhlaas haddaad musqusha intaad gashaan biyo cagtiyaa ku og haddana dad waa soomana kullu camal ibni aadama lah ila asawm fa inahu lii wa ana ajzii bihi camal walba aniga malaa'ig baan u wakiishaa ilaa soonka ma ahane soonka anigaa ka abaalmariya ayuu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala xadiid lqudsi madarasada laga qaadanayo soonka waa waktiga hal waqti laba waqti baan rabaa inaad in tilmaamo sida waqtiga looga faaidaysto ramadaanka daqiiqada la afurayo maaragtay daqiiqada la afurayo ma garanaysaan qof ku dhici karo inuu xabasa buusa qaato ayadoon la adimin waxaa la ilaalinaya waa maxay waa daqiiqad ma gaadhay laba daqiiqa hadhay hal daqiiqa hadhay waa la adimay daqiiqadaa sida loo ilaalinayo ayaa laga rabaa inaad waktiga loo ilaaliyo waktiga in la ilaaliyo haddaan su-aal mid weydiin karaa gabdho kulligiin intiina badan muxaadaradan goorbaa la idiin sheegay in maanta la bilaabayo maanta maya shalay ma rabo saacadda fi su-aashaada weydiiye waxaa weeye meeqaa la bilaabayaabaa la yidhi 10 jamiil haye haddaan 10 bilaabi lahayn hadda kahor waxaa dhacba idiin sheegaa dadkii hore joogay baa garanaye ama dad badan ba hadda magaalada dadka aqaan laga yaaba inay ku yaryihiin mar hore ahayd intii la ibelamiyey oo la yidhi 11kaad muxaadaro leedahay ayaan imaaday markaasaa 3 gabdhood halka noogu imaaday markaasaa dahba halkaa lagu xidhi jiray markaasaa la yidhi bal daah ii xidha muxaadaradii baan bilaabay 11kii markay ahayd muxaadarada marka 1 saac bay soconaysay markaasaa dhowr gabdhood oo kalaa soo galgalay markaasay gabdhihii qayloonaya macalin muxaadaradii way dhamaatay hadda fiili saacad bay soo dahday islaantaa ufiirsaya 1 saac bay soo dahday markaasaa macallinkii bay dembi u haysataaba maxaana looga hor bilaabay ku leedahay soo saas maaha waxaa la rabaa waktiga islaamka ilaaliyey gabdhow waktiga islaamka ilaaliyey waktiga aada ha loo ilaaliyay waktigu waa muhiim marka waktiga fiiri sida hadda loo ilaalinayo afurka waxaa leeyahay qof afuri kara lama arko daqiiqadaas baa la wada sugayaa daqiiqada kalena waa daqiiqada la suxuuranayo ogaada daqiiqada kale la suxuuranayo iyadana aad baa waktiga loo ilaaliyaa ramadaanka wuxuu kuu faa'iidanaya akhlaaqda qofkii shalay iska caytami jiray wuxuu leeyahay waa soomana qofkii maanta iska caytami jiray wuxuu leeyahay anu waa soomana walidaalika mid baa mid caay moogtahay markaasuu yidhi hadda anu kulama caytamaya laakin waa inoo maqribkii waa inoo afurka kadib buu yidhi
يعني waxaa ku adkaatay hadda inuu la caytamo wuxuu yiri waa inuu maqribki marka la afuro kadib baa arki doontaa hasta ayda waan aqaanaay laakiin hadda waan soomana laakiin maqribka noo ahaato wuxuu tarbiyeeyaa xubnaha adaa ka soo qaaday dhagaha alaga markii soonka markuu soonku ahayn dhalinyarada iskuulka aadaysa dhalinyarada iskuulka u socoto u fiirsan dhalinyarada 90% dhagaha baalka hoy talaha ugu jira baalka dhagaha ugu jira su'aal isweydii talow gabadha maxay dhageysanaysaa inta bas talow gabadhan baabuurka saaran baska saaran baaskiilka wadata lugeynaysa ee hoy taluhu dhagaha ugu jira talow maxaa dhagaha dhaxdooda ka shaqaraya isweydii maxay mareynaysaa nada xusani ya Abdul Basit عبد الرشيد علي السوفي يا المعيقلي ميا دغا كجرو ماليسا يا يعني قارو ugu jira waa jiraan laakiin meedala tahay dhalinyarada dhagaha waxa ugu jira oo uu ku farxsan yahay inay ku ayeen ma maranaysa ومع ذلك رمضان markuu yimaado wala bedelaya soo ma waxaa lagu bedelayaa khayrka walidaalika ramadaanku wuxuu ilaaliyaa xubnaha subxaanallah xubnuhu ilaalinaya wuxuu leeyahay ramadaan waa soomanahay ma khayrka dhageysanaya soonka diidaya inuu iga jabo soonka diidaya inuu iga nusqaamo soo kale iimaanku waa ziyaada wadogtii ramadaanka iimaanku waa ziyaada shaytaanka baa xirasano shayaatiinta iimaanku waa ziyaada qodob cajiib ah soo wadaaye intaan qodobkaas aan sheegin asaga aan su'aalida ka weydiiyo gacantana ha taagto gabadha su'aasha aan soo wada ka jawaabta diyaar matiin gabdho waaye waa tuma 11 bilood ee lasoo dhaafay gabadha ayada iyo ninkeeda iyo caruurteeda ay 3 waqti ay hal miis cunto ku wada cuneen aan ku celiyo su'aasha waa tuma gabadha 11 bilood ee lasoo dhaafay ramadaan kama hadlayo 11 bilood ee lasoo dhaafay gabadha ninkeeda iyo ayada iyo caruurteeda ay hal miis ay ugu yaraan ay qada ku wada cuneen ama ay ku wada casheeyeen ama ay ku wada quraacdeen gabadha gacanta taas ay ko waa mid laba waa mid saddex waa mid afar waa mid tamaam inta kala away marka 5 soomaa tamaam 6 todobo may dhimale kuwa nimanka lahayn caruurtoodan ka hadlayna ujeedada weyn goorma kugu dambaysa adiga iyo caruurtaada oo miis cunto ku wada cunay waayahay kabarheen gabdhaha jooga caadi maaha ma sha Allah meelo badan oo su'aalaha ka weydiiyay 2 gabdhood baa gacanta taagi jiray idinka meeqad maraysa hadda waa badantihiin in badan oo xishootayna way fadhiyaan laakiin waxaan doonayaa inaan dhaho ramadaanku waa habeen walba marka hadduu kan habeen iyo 2 habeen iyo 12 bilood wax ka weydiiyay haddii ramadaan uu soo galo waxaad arki doontaan sambuuskii iyo burkii iyo alaabta halkaa taalla odaygii baa soo fadhiisanaya salaadtaa soo fadhiisanaysa caruurtaa soo fadhiisanaysa soo saas ma ramadaanku marka kelimadan marka waa maxay ramadaanku qoyskiisu keena wataa jumladan rawaka kelimada aan doonayo inaan gaaro soonka faa'iidadiisa waxaa ka mid ah soonku wuxuu isu keenaa qoyska soo saas ma ha qoys ramadaanku qoyska dhan isu keenaa qoyskii hal meel ba ku wada laakiin ogaada kulligiin gabdhaha yaryar gabdhaha waaweyn gabdhaha dhexdhexe kulli ogaada reerku inay cunto hal meel ku wada cunaan haddii la heli karo mar walba taa ku dadaala tarbiyada saasa u fiican mar walba saasa u fiican in hal meel cunto lagu wada cuno guryaheennana sambuusa ka joojiya marka la sooman yahay saliidda dadka ka daaya saliidda ka joojiya odayaashaa jecel qallajiya waa yahay waayo odaygii hadduu jecel yahay adaa dhakhtara
dhakhtarkuna waxbuu daaweeyaa wax ma dilo sawir ma odaygii hadduu jecel yahay saambuuska adigu u dhakhtaree odayga wixii la baro un wey yaa baray odayga saambuuska yaa baray fiiri odaygu hooyadii waa hore ugu dambeysay soo ma ogidina odaygan hooyadii waa hore ugu dambeysay marka saliiddaha laga yareeyo hadday noqoto in saambuus lagu afuro saliiddaha laga yareeyo qof maanta oo dhan gaajaysnaa saliid hadduu cuno cudurradan maanta faraha badan ee aada arkaysaan baa laga qaadaa dhakhtar ma ihi laakiin waa baraarujin arrinta iyada soonka fawaa'idiisa waa atawba dadku inay dhammaantood ilaahay u noqdaan subxaana wa tacaala wadaa waxaa arkaysaa masaajidadii oo buuxa gabdhihii oo is asturay masaajidadii oo buuxa ayadoo la cibaadaysanayo marka tawbad ayaa laga faa'idaystaa bisha ramadaan inaan intaa ka badan waa idinka soo gaabinaya insha allahu mawadiic fara badan baa hadhay lakin insha allahu tacaala aan ilaha kusoo aruuriyo insha allahu tacaala haddaa la yidhaahdo subxaana wa tacaala wixii su-aala insha allahu tacaala idin siinaya insha allah haye telefoonka uu dhacaya qofkilaasi haye haye jadwalka markaan ku afuro 96 ayaa maalin maalmahan ka mid ah